الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسه صدحيا فرتنات يا كتاب كان عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وعن كسو هذا الشيخ غيبتي الدنيا دو كجري مثال الذي وكاني مثال مركي ربو كاني ثم أمثلة وقرآن كان وكاني هذا وحان أركينا أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم والدنيا دا وحكم مثاليي isagoo raba inuu dadka wax ku tuso mithaalkana waxbaa lagu fahmaa marka waxaa ka mid a xadiidkii jaabir oo imaam muslim soo saaray rasuulka sala allahu alay wasalam baa soo maray maalin maalmaha ka mid a suuqa markaasaa wuxuu arkay neef ari ah oo dhukani waa kan dhagaha googo-an oo weliba bakti ah kadib buu rasuulku sal alla alay slam asxaabta su-aal weydiiyey neefkan dhukan ee dhagaha googo-an ee baktiga ayaa hal shilin siisanaya buuri waxay dhaheen yaa rasuulallaahi yow ma jecelin inaanu kan qaadanno maxaanu ku samaynaynaa wuxuu yidhi wallaahi low kaana iyagii baa ugu jawaabay waxay dhaheen yaa rasuulallah wallaahi baan ku dhaaranay xitaa hadduu noolaan laha hadda waa baktiye kan oo kale in la qaataayo ceeb bayba noqon lahayd maxaa jira wuu dhukan yahay wuu dhaga googo-an yahay waana bakti marka hadduu nool yahay xitaa maanaa qaadanin ceeb bay noqon lahayd rasuulku wuxuu yihi sal alla alay slam wallaahi ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum neefkani siduu idinku agtiina uusan macno u lahayn oo wax macna uusan kani hadda agtiina uga lahayn baan allahna subxaanahu watacaala adduunyadu agtiisa macno uga lahayn waa mithaal aada u cajab badan rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam oo tusay saxaabi kalea jiray ضحاك ابن سفيان ليداهدو وحديث إمام أحمد صوصار الشيخ الألباني أو صحيحي ومثال كله وحول يا ضحاك ما طعامك عنتظى عنتي وامحي محال عنتي أوكله وحول يا رسول الله يو اللحم واللبن يعني هلب إيعانه وحول ثم يصير إلى ماذا هلب كإيعانه محين نقضان مركة به wuxuu yidhi ilaa maa qad calimta waxaad ogtahan bay noqdaan bimacnaa de waxay noqdaan wasaq qofku uu masquul geeyo ayay noqdaan hilibkii fiicnaa caanihii macaanaa wixii aad cuntay muxuu isu bedelayaa un wax masquul la geeyo wuxuu yidhi fa ina allaha tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala daraba maa yakhruju min ibni aadam mathalan lidunya wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala mithaal wuxuu inagu tusiyey waxa binu aadamka ka soo baxaya oo ah waxaas musqusha la geeyey ah baa mithaal adduunyada looga dhigay waa mithaal kaleo runtii isaguna cajab badan wey waxaa ka mid a rasuulka sala allahu alay wasalam aba saciid alkhudri xadiidka imaam muslim soo saaray wuxuu uhi ina addunyaa xulwatun khadira waa kii aan sheegayna waina allaha mustakhlifukum fiiha fayandur kayfa tacmaluun adduunyadu waa xulwa way macaanta waa khadira waana cagaar labadaa shay waxaa la yidhi waa laba shay oo midna cunaha ayuu u fiican yahay markuu wuxuu qofku liqi wixii macaani uu kugu socon midna indhuhu u fiican yahay oo markaad khadir meel cagaara aragto waad jeceshahay xadiiqooyinka iyo meelaha markaad tagto wa ina allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna idinka ayuu hadda khaliif idinka dhigayoo adduunka idinkaa jooga weeye wuxuuna fiirin doonaa waxaad samaysaan fattaqu dunyaa wattaqu nisaa buu yidhi waxaad ka baqdaan adduunye ka carar oo ka baqa oo yaynan idin fidnaynin dumarkuna yaynan idin fidnaynin buuhi iyagana maxaa jira fa ina awala fitnat bani israa'iil kaanat fi nisaa fitantii ugu horreysay oo reer bani israa'iil dumarka ayay uga timid marka haweenka shaydaankuna dee wuu kuu qurxinayaa waana meelaha uu ku soo gabado ragna halkaasay ku wada fidnoobeen ayib midda kale mithaal kale xadiid imaamu tirmidi uu soo saaray sheekh alalbani iyo ibnu maaja sheekh alalbani saxiixiyey naama rasuulu llahi sala allah alay slam calaa xasiirin rasuulku wuxuu ku seexday maalin maalmaha ka mida derin buu ku seexday faqaama wuu istaagay waqad ahara fii janbih derintiina waxay ku reebtay raad dhinaciisa waad garan kartaa derinta iyo gogolka iyo markii lagu seexdo oo qofku uusan dee dharna saasa qabin markii uu qofku fiiriyo dhinaciisa wuxuu arkayaa raadkii iyo wixii ku samaysay dee xasiirtu waa wax harka iyo wax lagu sameeyey waxaa yaa rasuulallaahi ow
haddaan kuu samayn lahayn gogol fiican maan kuu samayno. wuxuu yihi rasuulku sal lla alay wasalam maa lii walidunyaa, maxaa anigiyo adduunyana kala galay? maa ana fi dunyaa, anigu markii la ii fiiriyo adduunyada aan dhex joogo ma ihi ilaa ka raakib, waxaanu la mid ahay nin gaadiid saaran oo istadallaa taxta shajara. axaadiista qaar kale waxay ahaayeen qaala taxta shajara, qayluushaday ama waxoogaa hadhaystay geed hoosti wax yar ku nastay, huma raaxa wa tarakaha, caraabay oo ka dhaqaajiyey galabtii. adduunya waa inta qof safara oo riti saaran oo wax yar isyidhi meeshan balaad ku nasatid, kadibna galabtiiba ka dhaqaaqay. adduunyadu sidaasay tahaye maxaad gogol ii samaysaan buur. waa mithaal kaloo cajo badan oo uu rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam dadkiisa wax ku tusinayey. allah subxaanahu watacaala inaga dhigo kuwa ka faa'iidaysta adduunyada daaca iyo wanaag uga faa'iidaysta. ilaahayna subxaanahu watacaala inagama dhigo kuwa ku kadsooma. wallahu aclam.